أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين واندن سلام umada Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogtaan waandun salaam ya si sharaf iyo karaamo iyo ciisi ay ku dhahan tamaan idin salaamaya dhammaantiin insha Allah wax yar baan hagaajisanayaa hal shay gareeyo wax yar baan hagaajisanayaa kadib barnaamijka iyo wixii wax badan baa idin ka dambeeyay intii aynu kala maqnayn marka taas aan rabaa inaan la wadaago insha Allah maanta waxaan soo xasuustay heestii dulmi diido dulmi doonaan aragne dulmi diido dulmi doonaan aragne hees hadii ay la xasuusto hala sheer gareeya cadowga hala ii jabiyo cadowga yaan la ii jabin raalihaada cadowga yaan la ii jabin dad cadow aan ishaynaayo anoo ogtiin waxaan ahay fanaan qaran fanaan Soomaaliyeed qabiil ma ihi waxaan ahay fanaan qaran fanaan Soomaaliyeed baan xagaasna ka waxaan ku aftirsadaa qaran fahmaysan qabiil kuma aftirsado marka hala sheer gareeyo wax yar baan hagaagsanayaa si fiican loo sii sheer gareeyo haddaan hagaagsaday biyihii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقرأ لهذا وحبايا dhammaantiin waan salaamayaa intaan live ku jiro bilis yaan la soo wicin ama wasiir haw ama xildhibaan haw waxa doontaa hay soo wicin anigu hawshan taata sida u dhacday inaan ka tanaasulana ma rabo inaan cid la heshiiyana ma rabo faraha laga qaado cid arinta inta soo wada igala hadli karta malaha bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaantiin horta umada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dadka hadda daawanay waan salaamayaa dad badan oo idin kamid ah lama socon wixii maanta dhacay wixii hadda intii markaan live ku jiray wixii idinka dambeeyay intiina qofna ma oga intaan live ku jiro markii laga reebo inaan xanaaqo lagama yaabano mana doonayo in aan si gaar ah meel aan u taabto xanaf leh iga raali ahaada laakiin idinkana waxaan idin ka codsanayaa dulmiga qofka la dulmay oo dulmanaha garab siiya qofka wax dulmiyaha taageerina macnaheedu ma aha inaan aniga taageero idin leeyahay aniga ila jireen idin leeyahay laakiin mar walba waa inaad taas sameeysan Soomaalidu wuxuu ilaahay tawfiiqdan noo garamarsi waxa weeyaan waligan iyo allahan qofka la dulmiyo garamas qofka dulmanaha waan ka helinaa wallahi way dhacdaa mar kasta hadda ma aha marar badan bay dhacdaa bismillaahir rahmaanir rahiim markuu xaraab barnaamijkayga inaan guda galo meeshaas in maanta lagu bahdiliyaa ka dambeeyay yaa mas'uulka aha number 1 horta meeshaas maanta in lagu bahdilin ahla ku ka oo anoo gurigeyga iska jiifay wacay gurigeyga anoo jiifa xafladda kaale number 1 isagii Khadiija way sugaayeen asagii Khadiija diiriyeen wasiirad ku sheegta waxaan umada u sheegayaa waa laba wajiile waxay adeegsataa awoodeeda waxay adeegsataa xildhibaanada iyo xasaanadeeda adeegsataa waana beenaley khasisada sababta idin sheegaya maanta hadda waxaa socda shir dhalinyarada la leeyahay
shirka dhalinyarada laleeyahay waa lagu afduubay dhalinyarada xataa speech lama siin intaan meesha taagnaa tusaale aan idiin sheegaya bal aad ugu fiirsada hadalkayga aniga ma aha nin speech kama rab cid kalena ma taageerayo waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego dulmiga maanta laygu sameynayay anigu waxaa la yidhi milkiilayaasha dalka anu maxaan ahay milkiilayaasha maxaan ahay anigu marka milkiilayaasha dalka ma yihi dhalinyarada waddankaas kale ma yihi xasan cali khayre wasaaraha fariintan aniga xasan cali khayre 10 jeer baan ballanay ragga asaga la joogo way diideen inaan la kulmo si special aan ula hadlay fariin baan u diray way diideen yacni tusaale idiin sheegaya ninaan saaxiibanahay baa wuxuu ii soo qoray xasan cali khayre maxaad ugu sheegi weyday maxaad ugu sheegi weyday u dhihi weyday arrintaasaa dhacday waxaan ku idhi xasan cali khayre anigu ma rabo inaan bartokoolka ku ciyaaro dan gaarana kama lihi mana doonayaan ku idhi anigu inaan waxyaabahaas hadda aan waxeeyo ma doonayo sababtaan idiin sheegayaa wasiirad khadiija shirka waxaa loo qabanaya dhalinyarada soomaaliyeed soo maa ha soo haman anigu maxaana marka dhalinyarada soomaliya markii fanaannimo laga soo tago waxay aad in laygu ixtiraamo fanaannimadeedii qaranka soomaaliya fanaanidu war haadhe 2 saacadood oo kaamila waa hobalada waa beri banaanka lagu bahadilayo taagneeyeen ayaga xataa waad weydiin kartaan banaanka lagu celinayay markii la idhahay fanaaniintii orodoo maxaa la sii sheergarayo ilaahay baa idinku dhaarshay markii la anigoo gurigayga jif horta waxaan rabaa kow ma rabo dulmi say wax u dhacan maan rabaa in idiin sheego aniga xafladaas waan soo wicina qabanqaabadeedana waan ogaa markaan idin leeyahay aniga anoo saaka iska hurda amin duhurkii waxay soo wacay nimcan hilaac wuu soo wuxuu yihi cabdiyow meel baan jiraa bal u fiirsa hadalkaas waa beentii qofka aniga ay dhaliilsan nimcana soo weydiiyey meel baan jiraa walaalow qoladii hobalada waa beri oo banaanka lagu haystaa orado xafladda intaad tagto qoladaas xaree waayahay walaalo baan ku ihi gaarigaygaan qaatay xafladdii waan tegey waan xariis waan tegey ma rumaysanaysaan saaka markaan xilligaas aan hurdada ka soo kacay hadda markaan 1 saac idin dhahay leey baan soo galayaabaa qado iyo waxaan cunay igu horreysay intaasoo dhan xafladdii baan taagnaa meesha stagekaan taagnaa dhalinyarada soomaaliyeed oo xafladda joogtay iyo dadka live-ka daawanaya kulli way iga wada dhaxarkayeen meesha inaan joogay oon meesha taagnaa way u wada jeedeen good waxaa dhacday marka xafladda markaan tegey oo meesha stageka ahayd nimcaan oo hawshii dhacday kooxdii adigu wixii waan xaroonay alcamuum ma rabo inaan sii kala qaadqaado gudihii waan gallay gudihii markaanu gallay meesha stagekaan tegey waxaan ku idhi stage hala sii sheergareeyo livekan madaxda soomaaliya dadka soomaaliyeedna hala sii gaadhsiiyo waddanka kadaata dulmi baa ka jiro dulmiga ka jira waxay tahay waxa weeyaan awoodda qofku hayo dadka waa lagu ciqaaba shacabka ciqaab baa lagu marsiiyaa qofka asagoo title iyo mas-uuliyad adeegsanaya buu qofka uu arko inuu ka awood badan yahay ama uu ka xasaanad badan yahay wuu ciqaabaa tusaale aan idiin sheegaya meesha markay saas u dhacday oon meesha tegey nimco wuxuu ihi kooxdan soo xareynaya gabdhihii barnaamijka daadihinaya dadka cusub baan u sheegaya gabdhihii barnaamijka iyo dadkii gabadhii barnaamijka daadihinaya waan wada aqaanaa hebel baan idin dhihi karaa dadka meesha jooga aan qof aanan garanaynin haba yaraatee ma jirto mid baan u garanayaa dadka meesha joogay waa la igu soo dhawey microfoonka ma rabo inaan kala qaadqaadee khadiijo diiri way soo istaagtay jadwal bay soo qabatay waa beri bay tiri awey waa beri baa la yidhi microfoonka laga qayliyo waxaa la yidhi awey nimcan hilaac waa loo yeedhay kooxdiisii iyo asagaba waa loo yeedhay way soo galeen waxaan ku idhi de walaalo intay qoladan isdiyaarinayn dhaantadan adaa fankii mas-uulka adaa ilana yeedheen dhaantadan isxilqaan oo wadaniyadda aan ugu talagalay dalka iyo dadka iyo dhalinyarada aan ugu talagalay aan qaada baan ku idhi khadiijaa kuu diidan aniga maxaan sameeyaa baan igu yidhi khadiijaa kuu diidan aniga marka su-aal baan isweydiiyey nin aan saaxiibo nahay baan u diray nin la taliyaasha ra-iisul wasaaraha ma rabo inaan magaciisa aan message u diray waxaan ku idhi walaalow khadiija saasay leedahay dhaantada asaga xataa u dhageystay maxaan sameeyaa sug buuhi anaa la hadlaye dad warbaahinta ka mid ah xafiiska ra-isul wasaarahan haddana u sheegay waxaan ku idhi aan maxaa la dhahay dhaantadan aniyo rabo barnaamijka hala sii sheergaray baan ugu talagalaye ma qaadi karaa islaantuna way ii diidantay maxaan sameeya bal aad ugu fiirso waa intaanan masraxa wuxuu yihi aniga ma garanaya naagtan makhaayadda ayadaa u shidan tahay ayadaa wadata anigu ma garanayo waxaan sameeyo stagekii baan u laabtay wallaahi oo waa bilaahi oo waa tallaahi biyahaas waataan aan cabay waataan ku go-an way soo istaagtay makhraatina dhalinyarada soomaaliya iyo dadkii meesha joogay iyo dadkii iga dalbaday inaan dhaantadaas u qaado kulligood goobjoog bay ahaayeen way sheegi karaan wayna arkayeen makhraati bay ka ahayn
qaarkoodna si shakhsiyan bay hadda ila soo xariireen waxay dhaheen cabdi dhaanto siday kula dhaqantay khadiija apologies anaga kaa sinayna dhaheen shakhsiyadan aan kaa sinayna sababtu waxay tahay waxay dhaheen shirkan waxaa shir dhalinyaro Soomaaliyeed si haddii loo fiiriyo fanaan Soomaaliyeed baa tahay xaq baad waxaad meeshan ku leedahay inaad wacyigelintaada iyo wadaniyadaada dhalinyarada gobolada ka kala yimid inaad la sheer garayso oo la qaybsato waa waxaad xaq u leedahay waana arrin waajib qaran kuga walaal dhib malan ku dhahay anigu microphone xiiso uma qabo hadday heestaan noqoto 54 dawladood 58 dawladood oo madaxweyne farmaajo cali masaarkiisiya oo adduunka dhan maqraati ka yahay baan soo istaagon ka heesay yani waa masrax hadii loo baahan yahay hadii masrax loo baahan yahay هلا شركري حدي مسرح لو بهنياي ماشي حسن كسويسي لكن كليه مهمه waxay dhaantadan cusub asxalqaan oo wadanka iyo dadka iyo dalka ugu tala galay inaan dadka iyo dalka inaan message ahaan dadkan aan ula wadaago khadiija diiriye way soo istaagtay intay soo istaagtay bay tiri cabdi ka deg masrax stage iiga deg waxaan ku oran maamul maxaa khaldan bal aad ugu fiirsa hadalkaas maxaa khaldan qof wasiir tahay xildhibaanad baa tahay nimcaan waag taagno maqlaay dadkii wiilashii qalabka joogay way maqlayeen dadkii kale oo meesha joogay ayagana way maqlayeen waxaan sheegay wax been kuma jiraan waxaan ku uri neefsay wax jiraan islaantan adaa isku fiican tihiin walaalow la hadal baan ku uri astaghfirullah la hadal baan ku uri walaalow wuxuu yiri islaantan programka iyada wada hadhow baan la hadlayaa sug waayahay baan ku uri haddana way soo saartay waxay tiri cabdi ka deg bay tiri masrax والله wax kale imeena cabdi dhaanto masraxa ka deg bay tiri waxaan ku uri bal waaya taleefan ma jaajiriga jiraan qaato ha qaadanna ka deg bay tiri anigoo ka duulaya sharaftayda iyo sumcadayda ma aanan isku dayin islaantaas inaan la qabsado oo la tirsado madaxda hortooda ma arkaan wasaarihii gudoomiyihii gobolka inayna arkaan raali kama nahayn dhalinyarada meesha joogtay oo taageerayaashayda inay ayagana ka xumaadaan raali kama nahayn oo inay arkaan sida la ila dhaqmay intay arkaan meesha buu ka dhalato oo yaani islaanta taata ay ka soo horjeedsadaan raali kama nahayn hala si shargaray walaalayaal halna la si gaarsiiyo ma fahamteen raali kama nahayn balaad ugu fiirso shib baan idhi waayahay baan ku uri habar waan degaya waxay raacisay halkan ma aha jigjiga bay ku tiri dhaantana loogama baahnee go to jigjiga bay tiri oo halkaas dhaantada ku soo bandhig balaad ugu fiirso hadalkaas meel ku qorta ma aha ba this not jigjiga bay ku tiri aan loogama baahna dhaanto markaas waxaan ku uri anigu waxaan ku uri jigjigana may fanaan Soomaaliyeed baan ahay waxaan ku uri hadalka aad leedahay habar iska sax masraxan waan ka degay balaad ugu fiirsa hadalkaas masraxan waan ka degay walaalayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago ra'iisul wasaare xasan cali khayr tusaale idin sheegaya wuxuu yiri milkiilayaasha dalka tiin anigu maxaan ahay marka milkiilayaasha dalka mid ma yihiin anigu dhalinyarada kamid ma yihiin fanka Soomaaliyeed kamid ma yihiin dadka suugaantooda la dhageysta kamid ma yihiin heesaha meesha lagu soo bandhigay ayadaa samaysay murti ma lahayn wax murti ma lahayn xasan cali khayr lagu amaanayay dalkahay 3 sano soo haysay haddana sii hay waliga xilkahay wax saas ka hadlayeen balaad ugu fiirso waad dhageysan kartaan haddii aniga aad waxa laga yaabaa hadda inaad aniga daalacii raacsantiin oo dhihi kartaan ninkan taada muxuu la qeylqeylinayaa balaad ugu fiirso waxa laga yaabaa hadda inaad saas leediin laakiin waxaan idin sheegayaa waxaad sida la moodayo mise siday tahay tusaale idin sheegay dhalinyaro Soomaaliyeed baa soo waceen waxay dhaheen wasiirad Khadiija dadka ay meesha ay isugu yeertay ma dhalinyaro Soomaaliyeed ma mataleen waa dad ayada soo qortay waxaa jiraan ururo dhalinyaro organization oo xamar ka dhisan oo wasaaradda ka diiwaan gashan lacag baa laga qaaday lama casuumin lacag baa laga qaaday dib aad ogaan kartaan lacag baa laga qaaday lama casuumin Soomaaliya garan afgobaadsi iyo been iyo propaganda iyo qaraac meesha la soo istaagtay Soomaaliya garan aniga sharaftayda iyo wax walba maanta soo gaareen meeshaas waxa mas'uulka nimcaan ilaa waayo ninka casuumay iska Soomaa fankan asaas ka laha ma aha inaad jilacsanaata de raga ilaahay xaniyo ku yeelan nin raga fanka qofku markuu mas'uul ka yahay anigu waan ogahay nimcaan waa ninaan saaxiibana waa walaalkay aad baan saaxiibo isku nahay kaloos baan waan isku dhownahay حتى ماشي هذا أجاسمه وبلده وبرو جوجو دي أقامكم منن إماننا واحد كاني نكلا ده يا ماريو أبتو وقرابين يهبر خديجة كشقين الله كانوا وبلده وبري
ayagaa mas-uulka oo meesha keenay right si fiican baad ifahmaysaa soo ma ayagaa keenay maantana dee in meesha lagu bahdila asaga maa mas-uulka ahaa fankan asaa mas-uulka ah soomaan ma aha fiiri awooddaada inuu ilaahay kaa qariya maaha fanka markaad mas-uul ka tahay waa in anigoo cabdi dhaantaha qofka maanta wuu dhihi kara sidaas iyo sidaas khaladkaasaan jiraan ma aha dee anigu 4 xin soo 2 xinood ragga male 4 baan leeyahay dee mana cabsanayo halkaan lifeka kasoo tumi jiray gurigan waa guri kale ma ahayn asagii maan haddana deganahay dadka soo qorayo waa lagu dilayaa iyo waxbaa lagu gaadhsiinayaa waa inaad ogaataan anigu waxaan ahay fiiri waxaan rabaa messagekeyga iyo fariinteedan inaydu sii sheer garaan oo idinla wadaagtaan madaxda qaranka markaan idin leeyahay waad ogtihiin maanta ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha dadka inay ayaga fiican yihiin dad maafiya inay ka sokeeyaan waad ogtihiin oo maafiya bal maafiya inay ka sokeeyaan waad ogtihiin ani nin ra-iisul wasaaraha kamid a ee ragga la shaqeeya wallaahi biyahaasaan ku dhintaa baa wuxuu yidhi waxaan ku ni ra-iisul wasaarahan u baahanay arrin aniga bareybadiya inaan u tagoon kala hadlo ilana fanaan soomaaliyeed fanaaniinta kale waa u qaabila waa u tagi jireen fanaaniin badan buu u tegay soo ma anigan xaq baan nin wadankii jooga oo wadanka hawlaha ka jira shaqooyinka ka jira ka qayb qaatana dan waan ka yeelan karaa soo ma sax ilana dadku wasaaraha u yahay ama madaxda u yahay baan kamid ahay soo ma sax baan kamid ahay ilaa cid kale may waa haddii sida saxda loo dhiga haddii khalad loo dhigana kamid maba ihiba si kale haddii loo dhigo hala sii sheer gareeyo lifekayga wuxuu igu yidhi xasan cali khayre ma waxaad wax ka weyday daarood maad wax ka weyday bu igu yidhi markaasaan ku uri war anigu fanaan baan ahay nin qabiil mahi bal walaalow ceeb weyan waxaas iska daa farmaajo tag buu yihi iska daa xasan cali khayre waa taqaanaan hebel sawirkiisa haddaan idinla wadaago magaciisa haddaan idinla wado kulligii waad garanaysaan ragga howlwadeenada ra-iisul wasaaraha weeyaan bal ka waran waa xafiiskii dadka laga maamulayo dadweynaha dadka sidaas aaminsan baa qaranka ka shaqeynaya haddii la weydiiyo si saxa la weydiiyo waan ka jawaabayaa hebel waan dhahayaa ma fahmaysaan dadka messageka qaldan gudbinaya aniga beenta iga faafinay kamid buu yahay wuxuu yidhi orodoo farmaajo u tag buu yidhi farmaajo orodoo u tag markaasa waxaan ku ihi aniga maadi taqaanaa waan isbaray runtaan idiin sheegaya waan isbaray anigu nin noocaasaanan ku ihi laygama maqal dadkiina ni daawanaya 300 iyo 3,000 iyo 200 hadda daawanaya maanta waad ogtihiin inaanan anigu ahayn shaksi qabiil oo ololeeya markii laga tago kaftanka iyo riwaayadda iyo waxyaabaha sida kaftanka ama kama iga dhaca marka laga tago waad ogtihiin xamar iyadoo xabad iyo dagaal iyo wax walba ka socdo inaan idiin soo gudbiyo image fiican oo ah dalkiina inaad kusoo laabataan oo dhisataan laakiin dulmi iyo waxaan ku nool lahay iyo caqabad iyo waxaan ku nool lahay rafaad waan idiin sheegayaa maaha markii dan layga lehay in laysoo wacde anigu ma baahni haddoo kale in laysoo waco ma fahmaysaan ninka xafiiska prime ministerka ka shaqeeyo oo idhahayo orodoo xasan cali khayre maxaa dhahay farmaajo daaroode u tag maxaad ka sugaysaan tusaale idiin sheegaya yani simbal waxaan rabaa anu ina qabiil ma doonayo laakiin waxaan rabaa inaan wax idin fahamsiiyo maxaad ka sugaysaan yani qofkaas capacitygiisa intee leegyahay taagan yahay magaciisa waan idiin sheegaya waa taqaanaan xataa habeenka iyo waktiga iyo dadka ila taagnaa way wada joogaan waa la garanayaa hebel hala sheergaray hana la gaadhsiiyo fariintan dadka waxaas ka shaqeynaya qabiilka aaminsan waa laga gudba xilliga qabiilka dhalinyarada soomaaliyeed dadkii meesha fadhiyay iyo dadka aniga aan wax la barto waxna la soo bartay ma aha dad qabiil aaminsan xamar ma aha meel qabiil laga yaqaano laakiin dadka ina hogaamiya haddii 4.5 iyo qabiil ay ku dhisan yihiin annaga dhalinyarada xilligaas waan ka gudubnay caqabad kasta iyo rafaad kasta dadka soomaaliyeed ay maraan waa laga gudbi doonaa hadday qabiil aaminsan yihiin nin aan qabiil aaminsanayn baa imaanaya kuwana waan la shaqeynaa kuwa soo socdan waan la shaqeynaa bala hadalkayga waa inaad si fiican u fahamtaan meesha aan ka hadlayo balaad ugu fiirsada aniga tusaalaan idiin sheegaya ma rabo inaan dadku xadgudbo shacabka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waan ognahay khadiijo diire waxay tahay waad ogtihiin guddoomiyaha gobolka abti waxay hadda abtina guddoomiyaha gobolka waxaan rabaa inaan u sheego Cumar Finish islaantaas maafiyada inuu iska jiro hadda aan u sheegayaa waa inay ishiisu dheeraato khadiijo waa maafiyo waa inuu iska ilaaliyaa guddoomiyaha gobolka Banaadir waa nin sharaf leh Cumar Finish waa nin dadkan dalka usoo halgama islaantaas ha iska ilaaliyo dabanadii qolayso khadiijo tiiriye weji ba isticmaashaa balaad ugu fiirso naag weji isticmaalayso weeyaan naag diin haysata maaha ina kufta ma xataa uma malayna salaada inay tukato dee ma malaynaayo I don't think inay arrintaas jirto waayo qof mas-uul ah xildhibaan oo xasaanad leh
intuu soo istaago fan ma soo dhex galeen oo sharaftiisii karaamadiisa ilaalinaya ma fahmin inay dhimanayso say ogtahay way u ogeyd cabdidhaanto markay u diidaysa meesha inay balaaya ka raacayso madaxda qaranka soomaaliyeed baan rabaa marka inaan fariin u diro fariintaydaas waxay tahay sidaas ka daaya walaalayaal sidaas ka daaya anagu dhalinyarada dadkaad hogaamisaan baan kamid ah dadka lama kala saaro dadka idinku dhex jiro qabiilka aaminsanna looma baahna inay dadkaasoo kale ay shaqo sii wadaan waan ognahay inaydaa xumayn oo dad fiicantiin laakiin dad maa fiica idinka hooseeyaan oo idinla shaqeeyaan waan ognahay taas idinkuma nacayno laakiin jaaniska annaga ayaan sugaynaa marka waxaa weeyaan dadka qaar waxay soo qari aan heeso walaal anu haddaan heeso hataa xaq baan u lehay fanaan baan ahay dadkaas soomaaliyeed ee shacbigaas soomaaliyeed inaan sugaanteyda la wadaago xaq baan u lehay ma ahan wax waana waajib igu qotoma balaad ugu fiirsada aniga ma aha in lagugu shaqaysto dee isticmaar inaad noqoto sida gondobka la gashanayo oo one time use ma aha inaad noqoto gondob ma noqonayo anigu dee ma noqonayo midka gondobka la isticmaalayo la gashta ma noqonayo anigu hal mar baa la isticmaalaa soo ma aniga saas ma ihi wala fiirso khadiijo diri waxay waxaa jira koox la yidhahda danan oo fanaaniina oo waxaa jiraan ayada ay heese u samayn jirtay way ku shaqaysatay masraxay kusoo saartay hadda waxay samaysay hobalada waa beri qayb kamid a nimcaan iyo tiim isku fiican yihin bay samaysatay ayagay wadataa anigu weliga meela joogtana kama heesayo dib oo dambeeyana ugama heesayo inaan habartaas u heesana ma rabo islaantaas haska mirqaanto mirqaankeeda iyo hawsheeda iska wadato anu ma rabo laakiin inay dhalinyarada soomaaliyeed tiraada shir baan u qabanayaa dhalinyaradiina ay kala saarto oo si khaldan iyo qabiil iyo wax kale ay maxaa la dhahayay ay adeegsato sax maaha dadka soo qoraya khadiijo diiri waa maamo hooyada oo kalea hadday tahay maxay iga xishoon weyday wiilay dheli kartaan ahay wiilay dheli karto way dheli kartaa maxay iga xishoon weyday walaalayaal halasii fariintan halasii sheergareeyo waxaan rabaa wax walbo inaan idinla wadaago go-aan waxaan ka gaadho on idiin sheegay hadda kahor life dambe inaanan soo gelayn dad dambena aanan la dagaalan fadhiyey ra-iisul wasaaraha fadhiyey golihiisa wasiiradaa fadhiyey labada aqaloo baarlamaanka iyo aqalka sanadkaa fadhiyey kulli waa la wadaarkay laakiin arrintan inay si hoose ula socdaan ma umalaynaayo haddii ay xitaa ay ogaayeen kolley dee ma laga yaabin inay saaso waan damcay ra-iisul wasaaraha inaan la wadaago ku idhahdo adeerow sidaasaa jirto dadka aad matasho ra-isul wasaaraha tahay baan kamid ah dhalinyaradana aad rabto inaad u khudbayso ayaan kamid ah nin waliba taalantigiisa iyo wuxuu ilaahay si gaara uu hibe u siiyey ayuu muxuu lahay shirkan iyo dhalinyarada iyo wacyigelinka dalka uga qayb qaadanaya belaad uga fiirso wacyigelinta dalka uga qayb qaadanaya anigu wacyigelinta dalka waxaan rabaa inaan uga qayb qaato waxaan rabaa wacyigelinta dalka inaan uga qayb qaato suugaanteyda ilana taasaan hibo u leeyahay belaad uga fiirso anigu alxamdulilah nolol fiican baan ku jiraa ma ahan anigu inaan lacag u baahanahay lagama weynayo ma hadda jeebkayga lacag haddii laga fiiriyo ma fahmaysaan laakiin wallaahi oo tuma wallaahi xasan cali khayre ha la gaadhsiiyo anigu khalad kasta iyo dulmi qof lagu fiirsanayo ma aqbalayo soomuuna lahayn ma aqbalayo inay nacabsi geliyaan qabqablayaal iyo maxaa lahay dad mucaarada oo qawlaysataa anigana ma aqbalayo khadiijo oo kale ma aqbali doono habar khadiijo diiriyo oo kale ma aqbali doono iyo dad maafiya oo iyadoo la halmaano ma aqbali doono haddaan u sheegaya xilligii la dhihi jiray cabdidhaanto this is no jigjiga ma aha waa gobol soomaaliyeed ma diidayo oo la yidhahdo cabdidhaanto jigjiga oo laygu takooro for example ma diidayo male soo maha waxaan ahayna ma garanayo soo maha ma diidayo raalli baan ka ahay laakiin inaan ka jawaabo oo dadka xun aan idinla wadaago ninka xafiiskii ra-isul wasaaraha qaranka ka shaqeynaya ku dhahay orda farmaajoa daarooda u tag ka waran waa hebel waad garanaysaan hadday xaaladdu sii xumaatan waaba idinla wadaagi doonaba haka welwelina waan idinla wadaagi doonaa ballan ilahan ka qaaday ma fahmaysaan ma aha inaan qaraarsan aniga xasan cali khare 10 jeer baantaan message kala hadlo ila ballamay la ii diiday oo maxaa la dhalinyaro asaga la shaqeeya ay ii diideen weligeena kama dacwoon live na kama soo galin oo la yidhi orodo maxaa la farmaajo u tag bal u fiirso 10 jeer baa la yidhi laakiin ma doonayo anu hadda inaan arrintaas aan arrimahan oo kale inaan uga faa'iidaysto ma doonayo diyaarna uma
نيو شيخ شريف ثم والله marka waan idin ogahay dhalinyarada Soomaaliyeed markii laga reebo dad yar oo qurbaha jooga oo qabiilku madax uga jiro marka laga reebo dhalinyarada Soomaaliyeed oo xamar jooga anigu waligay Allah xamar waxaan joogaa 12 sano mise 12 sano baan magaalada Muqdisho ku noolahay noloshayda intaan iskuulka dhiganayay intaan jaamacadda dhiganayay waligay ma aanan arkin qof leeyahay Cabdi Dhaanto reerkee tahay qof dhalinyaro sharafta dhalinyarada xamar ay leeyihiin markastoon meel tagana xamar wax laga sheegan waxaan ku difaaca dadka xamar dhalinyarada xamar joogan qabiil ma yaqaanaan markasta saasaan dhaha way ka bogsadeen qabiil xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed lagu waxaynay ma yaqaanaan laakiin waan ognahay systemka dawladdeena inuu ku dhisan yahay 4.5 ma diidi karno waa qabiil shaqada la isku geey waxaan rabaa mar kale digniino inaan bixiyo islaantaas maafiyada gudoomiyaha gobolka ha soo jiro ninka la Umar Finish ha iska jiro waa maafiyo naagtaas waa maafiyo waan idin sheegay ma fahmaysaa ha iska jiro sababtaan u leeyahay jirto anigu weligay Allahay nin wasiir ama xildhibaan oo intaan la soo gal ku dhigan maartay maya Soomaha laakiin kursiga dadka ku fadhiyo qabiilka adeegsanaya naag wasiirada oo intay state-ka xildhibaanada xasaanada intay soo baxday state-ka fanaan ugu tagay soo dhaysay orada iga deg meeshan jigjiga maana ma weligii ma aragtan taas oo kale hadalka ilaa aanan ka seexanin oo calooshayda ilaa hadda aanan ka bogsanin waa eraygaas halkan jigjiga ma ahan dhaantana loogama baahna bay igu tiri يا الحمر قوليستا شرف هذي والله حنا أقولاننا دولميكا إرايغاس ما يلو بدونه ولينا ما يلو بدونه ما فهمتين مو يلو بدونه دتك يسوي عينيو يقرأ هذا دتك يسوي عينيو ما يلو بدونه وايو وحي كقاضي إلى هذا خديجة ديري أنا وحن كقاضي إلى هذا الشيخ فهميسا aniga ma doonayo waxyaabaha qaar inaan ku hadlo waxaan raali gelin buuxda ka bixinayaa erayo galabta markaan live ku jiro xanaaqsana galabta markaan live ku jiro hotelkay ku jirtay hoostiisu gaarigaygu ku jiray gaarigaygu meesha ku jiray aan live ugu jiro wallahi been idin ma sheegayo haddana gurigaygaan imid cabsida ilaahay ahayn mar hore waad ogeedeen 2017kii dadkii ila socday wogii cabsida ilaahay ahayn uma dhiman doono insha Allah taala cabsida ilaahay ma nu dhiman doona cabsi bini aadam uma dhiman doono samada garan uma dhiman doono sharaf iyo karaamo dhalinyarada xamar guuleysta sharaf aad leedihiin way ka xumaadeen maanta dhalinyaradii meesha jooga aad baa uga xumaadeen barnaankayga wada daba yimideen kulligood qaar baa ooyay yiri Cabdi Raallahow waan ka xunnahay waxaan oo kale wax walba indhaha nagaan u jeedno waan markaynay raalli noqo way ku dhaheen waayahan koori waayahay waan koori wax kale ma dhihin waayahan koori raalli baan kaan koori waana idin wataa baan koori kuwa xitaa Facebook ku soo qoray ayada taageersana waxaan koori raalli baan ku hay inaad aniga wax ka soo sheegtaan fahmaysaa laakiin waxaan idin sheegayaa dhalinyarada laga gobolada ka keentay oo ayada ay keensanto meesha ku wada jiray sharaf iyo karaam ay leeyihiin dulqaad adag bay muujiyeen saacado badan bay maanta meesha ku jireen ya ما فهمتين raalli ahaada aan nafta ku saxday marka arrimahaas oo dhan baa walaalayaal jira arrinta markay halkaas marayso waxaa idin sheegayaa khadiijo agaasimaheedii maaliyadda dee wuu is dhiibay kanaduu iska dhiibay seminaar baa loo diray muna soo laaban ha soo noqon bay ku tiri walu fiirso agaasimaheedii maaliyadda soo ogaada qof hadda message ahaan igu soo diray kanaduu iska dhiibay Canada ma fahmaysaa Canada iska dhiibay taas laakiin aniga ima qusayso wixii dhiibay wixii wasaaradda ka shaqeeya aniga ima qusayaan laakiin ayada say la dhaqantay qusaysa aniga waana socon doonaa live kan saanu socon doonaa gaf bay iga gashay way ii gaftay Khadiija Deeriya way ii gaftay
makhaayadaas hadday kuu shidan tahay annagana makhaayadana noo shidan makhaayadaas hadday kuu shidan tahay annagana makhaayadana noo shidan waa ka xuma anigu dee anigu caawa intaan awood intaan xaggan ka taga xasan cali khayr intaan u tago aan dhihi karo waa dulmigaasa laygu sameeyey meli soo ma ilaana waxaa ka sokeeya raggii yidhi orada farmaajoad aad asku reeratihiin u tag ninkaas aqoon imuun lahayn raggaasaa jooga soo ma raggii yidhi orod u tag ma farmaajoa ku deeqi waayo dadkaasaa meesha jooga dadkaas ayaa meesha jooga waan ka rajo dhigay anigu ma fahmaysaa laakiin anigu cidna ma rabo inaan taagareeyo fankayga iyo hawlahayga ma rabo inaan ka baxo qofkii fankayga iyo hawlahayga igu yimaadana waan iska dhicinaya waan iska dhicinaya ilma adeeryaal walaalayaal hala sheer gareeyo anigu waxaan diidanahay waa dulmi un qof idinka kamid a ilmihiisa hooyadii waalidkii in la dulmiyo cidna raalli kama sidaad idinka aydaa raalli uga ahayn baan aniguna raalli uga ahay sida ayda idinka raalli uga noqoteen in qof la dulmiyo agtiinana wax lagu dulmiyo baana aniguna raalli uga ahayn weligay qof meel lagu dulminayo ma istaagin qof meel lagu dulminayo haddaan arko kumaanan fiirsanin qof la dulminayo haddaan arko kamaanan tegin oo dulmiga kumaanan fiirsan anigana ma jeclin in la dulmiyo waalidkayga xataa weligay imaan canaan adduunka canaan baan ugu nacba markaasa islaan iska falalaxda intay soo istaagtay bay tiri cabdi dhaanto ka deg stageka meeshan jigjiga maahane dhaantana loogama baahnay orodoo jigjiga orodoo aad malo fiirso anigu wax walboona anigaa isu ah haddaan xumaayo haddaan fiicanahay qaran haddaan ku xumaado balo fiirso hadalkaygaas haddaan xumahay iyo haddaan fiicanahay haddii aan qaran ku fiicnaado qabiilka iyo dadkan ka dhashay baan u fiicanahay runtaan idii sheegayaa waan ogahay maanta wax walba qabiil iyo qabyaalad bay noqdeen anigu qabiil waxba kumaana noqonin qabyaaladna waxba kumaana noqonin nin dhalinyaro soomaaliyeed oo khaasatan xamar dhalinyaradaas iyo dadkaas bulshadaas iskala noolaa oo dadkaas fahmay baan ahaa dhalinyaradaas iskala noolaa haddana ayagaan iskala noolaanaya wax iskala bartaa iskala jaafaysa iskala allaaleysta hawsheeda loo wata haddana hawsheedaan iska wadanaya ma ihi qof hadda u joogsanayo khadiijadeed iyo hadalay tiri maxaa la dhahay ka awooda badan oo kalaan dheeraysan baanan waxba ka maqlaynin ayada oo maxaa la dhahay islaan miskiin oo dadka laga tirida badan yahayba maxaad iska badaaba ayada taas micno weyn kuma fadhido ima sii kulaylinaya dadka laakiin waa inaan la wadaago meesha waxay ku hayso inaan idin la wadaago taleefano diri doonaa kulligood waan ka jawaabi doonaa qof kasta oo ii maleeya inaan dulmi wadana wuu ila hadli karaa wuxuuna i dhihi karaa waxaasaa dulmiday waxaasaana samaysa waad khaldan tahay waad i dhihi kartaan laakiin ayadana khaladkeeda u sheega haddii aad dad soomaaliyeed oo xalaala atiin arrintaas aan ka arko social media islaantaasna ha aragto inay waxay igu sameynayso waxay khalad aha inay khalad ahaayeen waa la wada maqlayay marka saasi dhahaysay nimcaan laacu maqlayay kooxihii fanaaniinta hobelada waa beri way maqlayeen qoladii farsamada meesha fadhiyay way maqlayeen dadka xafladda fadhiyayna makhraati bay ka ahaayeen inaan meesha taagnaa in xataa magacayga la sheegay oo la ii yeedhay oo la yidhi hobeladu waa beri xataa ma joogto banaanka ku maqayna cabdi dhaanta loo yeedhayaa way maqlay laakiin anigu iyada uma qabanayo ma ihi qof waxyaabahaasi wax lamida ay xadidaan cabdi dhaantu waa kaa taqiineen qof kale maaha layma bedelin 2 jeerna layma abuurin weligay wax aan go-aansaday kama laaban mana istaajin maaha inaan isfaaninayo laakiin waxaan ahay waa inaad ogaataan cabdi dhaantu qof caga juglayn iyo been iyo orada meeshan ka tag lagu celinayo ma aha ma ihi keliyo nin fanaana aniga ma ihi anigu qof wax bartaanahay nin anshaxa bini aadantinimada xushmada qofka kaa weyn iyo ixtiraamka qofku kugu lehay nin fahamsan oo aqoon ahaan wax u fahamsan baana ma ihi laakiin qof yani jaahilo wax alla wixii aqligiisa kusoo dhac sheegay ma ihi xaasha waad wada ogtihiin dad badanna way garanayaan xaqu ha shaqeeyo xaqa iyo cadaaladda ha shaqeyso shacabka soomaaliyeedna makhrataa ka hadaa waad ogtihiin caqabada iyo rafaadka xamar aanu ugu joogno inaanu waddankanaga aanu idiin soo gudbano wax qurux badan makhraatibaad ka tihiin wadaagno xamaraad ka tihiin makhraatibaad ka tihiin meelana ugama socono qof hadalkiina maalintay taayada dhammaato
baanu meeshan ku ofinayna ama dana kale aan uga tegi doono laakiin waxyaabahaas kale ma istaagi doono qof fahamka sidaas ka laakiin maanta qofka aqoonta le maaha ma aha qof xaqa inuu ka gabado especially qofka mas-uulka ya anu fanaan baan Soomaa fanaan Soomaaliyeed baan suugaan ma ka shaqeeyaa Soomaa meel kasta iyo xaflad kasta waa layla waxa Soomaa waa inaan idin sheegay qofka la takoorayo qofka la dulminayo qofka beenta la sheego qofka la dulminayo waa inaan idin la wadaagaa oo idin dhaha qofkan dulmi baa lagu hayaa ee Soomaaliya raalli ahaada qofkan mas-uulka madaxda matala waxaas sameynaya Khadiija Diiri waxaan leeyahay anigu makhaayada wasaaradda kuguma haysto hawshaada wado raalli baan ka ahay raalli أنا كمان كنسن حس على خير كنسنتي حس على خير أو شقيسة أنا حتى يمشي قيسد كم إيمان ما تشد أنا قال وأيو وحنا قاعدين ما أنت وحنا قاعدين حس على خير مركو ده هيو ملكي ليش ودن كاتي وحسنا بنت أنا قاعد والله بين أنا ودن يرد ما هي دن يرد ملكي ليش ودن كمية مي ساسا يصبح مي أنا ودن يرد dadka la soo aruursado wax loo sheegay bas ba waxay milkiilayaasha dalka dadka la soo aruursaday oo wax loo sheegay oo la qoray listiga lagu soo galiyay bas ba waxay milkiilayaasha dadka ma ahan anigu inaan hadda cid gaar aan taageeranay laakiin xuquuqdayda iyo xuquuqda dhalinyarada aniga ila mid ka hadli karin ma rabaa inaan halkan ka sheego waana anigu dhalinyarada meeshaan kamid ahaa وانا مثلا حتى هذه دليل نموذج اللي يقصون واحد كم مثليا كالنتا فنكا ايام كم مثلي فنك وحي فنك لو يجوجي اقاسمي فنك سوغانتا هو لده وابري باتوي فلو فيرس باتوغي ما مالين سماحه سوديدو iga dhacayo hadaan dulma la igu sameeyna iga dhici lahaayeen rafaadkaas oo inaan ismarsiin la ma malaynaysan amay ya waxaan cuna maana wayn waxaan cabo maana wayn guriga VIP dan dhaxdeganahay gaariga VIP dan wata maana wayn laakiin dhididkaas oo dhan wuxuu iga dhacayaa aad u jeedaan waxa soo dhidid wuxuu iga dhacayaa dulmiga aan indhahayga ku arkay 1 2 3 formanen oo madaxda qarankan ay gobjo ka hayeen dulmigaas baan maxaa la dhahay ka xumaa oo raalli ka ahayn dulmigaas ayaana raalli ka ahayn kulli way daawanayaan fariinteedana way gaari doontaa hana la sii gaarsiiyay hana la share gareeyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii gaf oo iga dhacay hay qabanina nin xanaaqsan oo la dulmiyay oo la soocay oo qof xasaanad oo xildhibaan iyo wasiirnimo isku wato uu intuu soo istaagay stage ugu yimid uu soocay baan ahay oo si khaldan ula dhaqmay marka ilmaadeeray walaalayaal dhan kastaba taageer ama cidda rabto taageer anigu waxaan dhexdhexaad fanaan baan ahay fankayga xadkiisa iyo xuduudkiisa kama baxayo hana la sii share gareeyo barnaamijkan hala sii share gareeyo kama baxayo laakiin walaalayaal dulmiga Soomaaliyeed dulmiga qofka la dulminayo ka wax dulmiyeedu garabka siinaysan iska daay intaas aan rabaa inaan idin sheego bas waan arkay marar badan xataa goobjoog baan u ahaa qof wax dulminayo kii dulmanaha ahaa loo hiil garab laga siinayo oo kii wax dulmiye garab la siinayo waan arkay anigu aan dhalay baan ahaa codkayga meel kastuu gaadayo waan isdifaacaya waxayga waan dhacsanaya laakiin dad waxaa jira intaas aan awoodin صح ما awoodaan de ma awoodaan waan ognahay hebel waanu aragnaa haddaan rabo inaan ceeb sheego oon ceebo shiro oon rabo inaan ceebo ka shaqeeyo taleefankayga waxa ka buux waa ceeb kumanaan ceebood baa ka buuxan haddaan rabo inaan ceeb sheego iyo dad inaan dhaleeceeyo wax ka sheego laakiin ma doonayo arrimahaas waqti bay ahayd waanu joojiyay inaan dhaleecayn iyo ceeb kama yaabano inaan dulmi ka aamuso waxaan idinka ballan qaadayaa arrintan wax walba oo ka soo kordha ballan baan idinka qaadayaa inaan idinla wadaago ballan ilaahay baan idinka qaadayaa taas ballan ilaahay baan idinka qaadayaa waxaan ogaan cabdi dhaantu wuxuu yahayna waa la ogaanayaa bowdadaa la soo garaacanaya saaxiib huis cabdi dhaantu wuxuu yahay waad ogaanaysaan haddaan kor saas ugu kaa jawaayo dhalaana waad ogaan doontaan kor haddaan kaa jawaayo oon maxaa lahay caana ka lisi waasankooda cid alla ciddii isku kaydayda aniga inay maxaa lahay programyada howlahayga faraa gashato marka kolley hawshu saasoo u dhacday wasiiradaas maanta saasay samaysatay arrintaasna kolley way idula socon doontaan
wixii kasoo cusboonaada kolleyna dee anigu waxba cabdi dhaanto dad badan baa dibadaha iyo meelo badan oo kala duwan iga soo wacay hayga welwelin anigu saad moodeysaan may waa inaad ogaataan anigu balaayo ma qabo dhibaatana ma jirto cidina qori iguma hayso cidina ima dulmiso cidina maxaa la dhahay ima dulmiso waxaan ka wadaa iguma soo xadgudubto cabsidii hadda aniga aan ka cabsi qabo inay wax soo gaadhaan hadda xilligan ilaa ya hadda waqtigaan idinla hadlayo inaan waxa ma jiraan waxaan hadda dareemayo oon ka cabsi qabo ma jirto cid aan ka cabsi qabo hadda inay aniga wax soo gaarsiinayso wixii un qadar rabi mooyeen ma jirto taas laakiin fariintayda gaarsiiya ummadda soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed dadka dulmanayaasha fariintan tadaad hala gaarsiiyo dhalinyarada soomaaliyeed ma aha dad ay khadiijo diiriya soo qorqortay oo ay qol kusoo xareysa maaha dhalinyarada soomaaliyeed 57% boqolkiiba 75 waa dhalinyaro qolka waxaa lagu soo xariyay waad ujeedeen dadka lagu soo xariyay waad ujeedeen soo maaha lagu dul khudbadeynayay waad ujeedeen dadkaasoo kale iska jira ma hadli karaan way dulman yihiin annagaa idiin hadlayna adeer don't worry ha ka cabsanina annagaa idiin hadlayno codkiina anaa ku hadli doono insha allah ha ka cabsanina taas hawshana way soconaysaa hadde saan u soconaya dagaalkan ma joogsanayo qofna kuguma qasbayso saaxib haddaad maqal waad iska bixi kartaa qasab kuguma inaad lifekayga daawato de haddaad igu qanacsanayn waad iska bixi kartaa jaw anuma anaa ku qasbaya dadka lifekayga daawanaya qofka ani rabin dee iska baxo muxuu lacagta sooga dhamanaya waqtiga anigu dadka soomaaliyeed oo isbedelka doonayaan la hadlaya anigu dadka isbedelka doonaya oo dulmiga diidan baan la hadlaya marka ciddii iska caytamaysa ciddii hadlayso waa free waxaad rabto waad sheegi kartaa laakiin dadka maskaxdooda saliimka iyo aqligoodu uu shaqeynayo waan la hadlaya anigu cid kale lama hadlayo ma fahamtiin marka aad baan idin salaamayaa hawshu sidaas oo ula soconaysaan message-kana hala sii faafiyo khayr badan baan idiin rajeynayaa wabilaahi tawfiiq